السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ميل كستو جوجتان إيسي كستو نودا ونيسان ميل كميد جيركاغا برر مكاغا جرا أما جبي أهام با جيركو مكو برر سنيهي مهم ماها انت سندات برر سنين سند 10 سنة 6 سنة بالأسبوع مهم ماها لكن وحان كوهايا هب دبيعية أو اسكو دوين كرتو oo aad bararkan muddo ugu yaraan 3 maalmood ilaa ugu badnaan bil aad isaga daweyn karto adigoo aan wax dhakhtar ah u tagin ma soo ogtahay waxa aad isku daweynayso in uu yahay wax maalin walba qadada marka aad karinaysaan ama la karinayo lagu daro haddaba waxaasi muxuu yahay sideese loo isticmaalayaa waa kan شيخ حمزة أحمد أو إنه فاهنية. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما ولا الله واندين سلامي إلهي بمهد له أو السون نبت عليه كل أيامهن سفر أيامكم مقناه متدير كتب وانصال لابتي واني كمان دين سهر فريستي الله السون نبت عليه ربي كي نبت كيني بمهد إسكاله إن شاء الله ما دام أنصال لابتي waxaan jecelahay inaan idinla wadaago cidii bararsan korkiisa barar ku jiro bararka la dhibaataysan aba shakhsiga bararay istaweyn kari waayay wuxuu isku daaweeyna aan garaneyn maxaa bararkaas ka ridi kara maxaad bararka isaga daaweynaysaa sidee bararkaas aad u daaweyn karaysaa insha Allah taala maanta ay soo gudbinayna sida ugu fudud bararka aad isaga ridi karto isagana daaweyn karto jidkaaga oo dhan bararku uga dhacaayo dabcan halkan waxaan ku hayaa waa toontan ayaad soo qaadanaysaa laba xidhmo oo buurbuuran kadib labada xidhmo waa dhilaysaa waxaad ku ridaysaa koobka caanaha lagu shiido waxaanaad ku kor dari doontaa biyo xoogaa leeg biyo aan sidaana u badneen sidaana u yareen aynu qiyaasno yacni biyo intaas leeg biyo intaas leeg koob marka lagu shubo biyo intaa leeg ayaad ku shubi doontaa laba xidhmo oo toona iyo biyahaas ayaad ku shubi doontaa galaaska caanaha lagu shiido kadibna isla shiid marka ay shiidmaan ayaad insha Allahu tacaala biyahaas ku shuban doontaa weel toontii aad shiiday biyahaas ayaad weel ku shuban doontaa habeenkii marka aad seexanayso dhammaan korkaaga meeshii bararsan oo dhan ayaad marinaysaa meeshii barar uu ka taagan yahay ayaad marinaysaa meel kaloo bannaan ha marinin halka aad ka cabanayso ee bararku kaaga yaalo jidhkaaga meesha barartay oo keliya ayaad biyaha aad shiiday toonta ku shiiday ayaad saa u marinaysaa habeenkii markaad seexanayso insha Allah subaxii markaad soo nabad kacdo waad ka qubaysan doontaa amba waad iska masixi doontaa hadba tii ku fudud baad samayn doontaa laakiin waxa keliya laga doonayaa meesha bararku ku jiro in aad mariso jid kale oo aan waxba qabin ha marinin barakallahu fiik meesha ku bararsan baad marinaysaa muddo yar 3 habeen markaad mariso bararku ka dhacaya hadii 10 sano aad bararsaneed hadii 5 sano aad bararsaneed hadii 1 sano aad bararsaneed hadii aad 10 cisho bararsaneed bararka jidkaaga oo dhan tan ayaa ridaysa toontan sida aan kuu sheegay markaad isticmaasho haddaba way kale yihiin dadka qaar baa muddo badan bararku jidkooga ku jiray muddo aad u badan 8 sano 5 sano 7 sano ilaa iyo 10 sano dad waxaa jiray jidkoogu bararsan yahay dadkaas oo kale ma 3 cisho isticmaalayaan waa maya waayo maxaa yeelay muddo badan bay soo bararsanaayeen saalaajigeed dadkaas oo kale waxay isticmaalayaan hal bil oo joogto ah ayay habeen walba biyahaas marsanayaan jidkooga meesha bararsan dadka kale ee muddo yar uu bararku hayay ayaga waxa ugu yar 3 cisho ayaa ugu yar oo uu shakhsigu marsanaya waxaana ugu badan bil ayaa ugu badan iyo inta u dhaxaysa ayaad isticmaali karaysaa haddii aad ka cabanayso barar ku yimaada jidkaaga iyo barar aad la dhibaataysan tahay oo aad daawo u weyday daawadeedii waa tan aan kuu sheegay barakallahu fiik adiguna ka faa'iideyso walaalahana gaadhsii way ku anfacaysaa mar labaad waxaan dileeyay waan idin soo laabtay safarkii ilaahay waa ii fudeydiyay insha Allah taala
daawooyinkeenii tuburcaadka ahaa ee aan ilaahay dartii u soo gudbinayay waalidkana u niyeysanayay waa idiin soo gudbin waa hagaag waxaan rajaynayaa in aad wada fahanteen sheekh xamse iyo qaabka uu u kala dhigdhigay daawadan qaabka loo isticmaalayo. haddaba dad badan ayaa waxa ayna soo weydiiyaan inta la isticmaalayo. waxa ugu yar 3 maalmood waxaana ugu badan muddo bil ah. aan idinku celiyo 3 maalmood ayaa ugu yar waxaana ugu badan oo la isticmaalayaa muddo bil ah. hadba qofka markaa bararka intuu soo hayay ayay ku xiran tahay. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo channel-ka Bulqaas hanaga ilaawin subscribe, like iyo follow in aad na soo tiraahdo. haddii si aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha iloobin in aad muuqaalkan aad share garayso si dad badan u gaaro oo ay uga faa'iideystaan. ogow haddii adiga uusan barar ku hayn ama jirkaagu uusan bararsanayn waxaa jira dad asxaabtaada ah ama walaalaha ah oo xanuunkan bararka uu dhibaato uu ku hayo. kuwaas ayaa ka faa'iideysan doona. sidaa daraaddeed ha iloobin hana nagala bakhaylin in aad share garayso. wixii talo iyo tusaale ah dhinaca commentiga ayaad noogu reebi kartaan. aad ayaad u mahadsantihiin.